السلام عليكم. qoraaga caanka ee Danish-ka la yiraahdo H.C. Andersen ayaa wuxuu leeyahay sheeko gaaban oo la yiraahdo Kejserens Nya Klæder ama dharkii cusbaa ee boqorka. sheekadaas markaa wuxuu kaga sheekeynayaa nin boqor ah oo aad markaa u jecel dharka inuu gashado, labiska inuu gashado. waxa ay taasi noqonaysaa markaa wax inta badan waqtigiisa qaata oo markaa ka mashquuliya xukunkiisii. laba nin oo markaa beenaala ah oo markaa xirfadooda ka dhigtay inay dadka khiyaamaan ayaa maqlaya waxaas. kadib way imanayaan boqortooyadiisa, way imanayaan boqorkay qasrigiisa ugu imanayaan. waxay ku leeyihiin boqorow, waxaan helnay sirta loo toli karo labiska ugu quruxda badan adduunka. waxaan kuu toli karnaa dhar aanad weligeed la arkin, dhar la yaab leh, kalaradiisa dadku ay la yaabi doonaan. dharkaas waxay leeyihiin laakiin sifo la yaab leh. dharkaas ma arki karaan dadka doqomada ah ama dadka aanan shaqadooda si wanaagsan uga soo bixin. boqorkii arrintaas aad buu la dhacayaa, wuxuuna ku amrayaa in lacag la siiyo. wuxuu ku leeyahay waxay u baahan yihiin oo dhan ha la siiyo say dharkaas u tolaan. labadii nin qol baa la siinayaa, laba kursi bay dhiganayaan. kadib waxay soo qaadanayaan irbad bay soo qaadanayaan. maantoo dhanna waxay iska dhigayaan dad wax tolaya. mashiin ma yaallo meesha, dhar ma yaallo meesha, waxba ma yaallo. dhowr maalmood markii laga joogaa boqorkiibaa wasiirkiisii koowaad buu diraya. wuxuu ku leeyahay bal orod soo arag raggii waxay sameeyeen. wasiirkii koowaad meeshuu tegayaa. kadib raggii buu salaamayaa. war iska warrama, sida waa fiicannahay, dharkii baan tolaynaayo la yaabka lahaayo hadda waxaan samaynay shaarkii ayaan dhammaynay. ninkii wasiirku uu og yahay inay raggan yidhaahdeen ninka doqonka iyo ninka shaqadiisa aanan ka soo bixin ma arki karaan dharkan, sidaa daraaddeed ma qiran karo inuuna dharka arkayn. isaguna indhihiisu way tusayaan inuuna meesha dhar jirin. laakiin wuxuu leeyahy walla qurux badanaa, bismillaahi, war shaarku qurux badanaa, war midabadiisu cajiibsanaa. dadkii magaaladao dhan baa maqlaya. waxaa maalin walba lagu wareegayaa gurigii ay ku jireen raggii dharka tolayay. ugu dambayntii boqorkiiba imanaya. raggiiba waxay ku leeyahay war ka warrama, haye shaqadii halkay marayaan. meesha waxba ma arkayo, laakiin waxaa arkaya laba nin oo gacmihii keliya dhaqdhaqaajinaya. kadib markaasaa waxay ku leeyihin ka warran boqorow, shaarkan aan kuu tolnay, surwaalkan aan kuu tolnay, iyo jaakeedkan aan kuu tolnay, koorhkan aan kuu tolnay, ka warran. boqorku wuu arkayaa inaan waxba jirin, laakiin wuxuu diidayaa in la yidhaahdo inuu doqon yahay ama shaqadiisa una qabanin. sidaa daraaddeed wuxuu leeyahay waaw, qurux badanaa dharku, weligay indhahaygu may arkin dhar sidan u qurux badan. dadkii baa soo gelaya, albaabadii ka soo gelaya. markaasuu boqorka ku leeyahay ka warrama dharkan. markaasay leeyihin qaarkood wasiiradii iyo dadkii meesha ka shaqeynaya leeyihin qurux badanaa dharku, alla qurux badanaa dharkan, weligan ma arkin. maalintii markaa la go-aansaday inuu dharku boqorkii gashado ayaa labadii nin baa imanaya. boqorka dharkiisii u gashanaan bay ka bixinayaan. kadib waxay iska dhigayaan inay funaanadii u gelinayaan, inay surwaalkii u gelinayaan, inay jaakeedkiisii u gashanayaan. boqorkuna waxba ma gashana. kadib boqorkii laamigiiba usoo baxaya isagoo qaawan, una waxba gashanayn, dharkii cusbaa mooyaane ee loo geliyo mooyaane. dadkii buu soo dhex marayaa. dadkii way og yihiin, nin walba wuxuu ka baqanaya in la yidhahdo waa doqon ama shaqadiisa ma qabto. sidaa daraaddeed waaw, qurux badanaa, war dharku cajiibsanaa, war maxaa laga sameeyey, war sidee weeyaan. dadkii waxaas ku mashquulsan oo dadka o dhan isaa wada leeyihiin ayaa canugu yar baa meesha ka qaylanayo 5 jir 6 jira. markaasuu leeyahy laakiin boqorku wuu qaawan yahe. markaasaa mid baa odhanaya muxuu yidhi wiilka yare. markaasa wuxuu leeyahy boqorku wuu qaawan yahu yidhi. de haya waa run, boqorku wuu qaawan yahay. markaasay nin walba bilaabaya boqorku wuu qaawan yahay, boqorku wuu qaawan yahay, boqorku wuu qaawan yahay. sheekadan waxay ka turjumaysaa wax cilmi nafsiga loo yaqaano conformity, wax loo yaqaano oo ah qofku in uu raaco ra'yiga aqlabiyadda, xataa ra'yigaasi hadduu kasoo horjeedo wuxuu isagu aaminsan yahay. waa wax aada u shaacsan oo caalamka ka jira, oo cilmi nafsiga tijaabooyin kala duwan oo aada u badan laga sameeyey. waxyaabihii maaragtay maxaa la yidhaha, waxaa la sameeyaa in dad jilayaala la keeno, tobaneeyo meel inta la istaajiyo, meelaha tareemadoo kale. kadib nin baa imanaya, markaa meel buu istaagaya, safkii buu istaagaya. kadib qof dumara ka horeyso shandad dhabarka ka gashan.
kadib markaa nin jila ah isaguna jilayaashu ku jira imanaya gabadhii buu shandadeeda lacag kala baxaya ninkii gadaasheeda joogay uu yaabaya wuxuu rabaa inuu wax sameeyo laakiin wuxuu arkaya 4 5 6 oo jilayaal ag istaagan isagu ma garanaya jilayaal yihiin saasay u daawanayaan ninkii lacagta xaday waxa ma sameynaya ninkii laana wuxuu isleeyahay macquul miya 60 qof inay arkaan waxan wax dhacaya oo aamusan sidaa daraadeed markaa waxa weeyaan waxan waa conformity qofkii bini aadanka ra'yiga bulshada ka badan waa waxaan ay Soomaalidu u yaqaanaan dad ka badan iyo dad ka badanba way ku qaataan waxa jira markaa 3 awoodood markaa oo keenaya yani 3 awoodood markaa oo ku saameynaya ra'yigaaga shakhsiga ah kow awoodda ugu horeysa waa awoodan siyaasiga ah gaar ahaan hadduu bulshadu ay tahay bulsho siyaasi bulsho yani ku salaysan dictatorship waxaan la yiraahdo dictatorship wuxuu ka yimid ereygan Englishka la yiraahdo to dictate inaan kuu sheego waxaad sameynaysid I dictate ma garatay sidaa daraadeed ninka siyaasigu shicibkii wuxuu ka dhaadhicinayaa in 99% uu isagu helay sidaa daraadeed ra'yi ka duwan haddaad sheegtid wuxuu ku odhanayaa oo yaa taadu 99% baan iga codeeyay aamus dadkaaga dhinac ka raac buu ku leeyahay dadkaaga dhinac ka raac inkastoo aad garanayn dadkaas tiradoodu ay misa ma 99% baa codeeyay ma 100% baa codeeyay ma 10% baa ma garatay codeeyay marka ra'yigaaga siyaasadeed mar walba waa inaad caburisaa marka waxaad noqonaysaa conformity-gana 2 qaybood bay u qaybsantaa qayb ah in aad raacdid ra'yigii majority-ga adoo ka baqanaya marka position-kii aad majority aad ku lahayd bulshada aad ku dhaxlayd inaad weydid ama dan aad weydid danahaagi matalan jagadaadii aad haysatay ama asxaabtii aad lahayd aad weydid sidaa daraadeed aad ku khasbanaatid inaad ra'yigii majority-ga aad raacdid hase yeeshee ra'yigaaga shakhsiga ah gudaha markaad kaligaas la joogtid kaligaas sheekaysanaysid aad tiraahdo waxan waa khalad iyo waxaa jira qof cabaya wixii oo bulshadii waxay lahayd aaminsan cabaya aaminsan inay sax tahay sidaa daraadeed markuu bulshada la joogo iyo markuu kaligiis joogaba ra'yigaas markaa aaminsan awoodda labaad waxay tahay awood bulshadeed gaar ahaan annaga bulshadan awoodan waxa weeyaan qabiilka la yiraahdo annaga qabiilku wuxuu u shaqeeyaa hab caymis oo kale caymis bulshadeed markaad khalad gashid qof bini aadan markaad dishid jagadaada markaad laaluush qaadid markaad wax sameysado lagu qabto qabiilku markaa wuu soo gelayaa soo ku badbaadiyo adiga markaa waxaa lagaa filayaa in qabiilku markaa group ahaan iyo koox ahaan markuu khalad galo dagaal reer kale ku qaado dhul ka qaado dad kale wax kala sameeyo inaad adigina markaa taageertid adoo aaminsan gudahaaga inuu waxan wax khalad yahay laana waxaad ka baqanaysaa bari inaad khalad samaysid ama in dhibaato kugu dhacdo marka waxaad u baahan tahay caymis bulshadeed baad u baahan tahay awooddaas qabiil markaa waxa weeyaan marmar waxay kugu kalifaysaa ra'yigaaga adigu aad lahayd in markaa aad dhaaftid oo raacdid ra'yigan groupka waa wixii ka dhacay matalan Rwanda oo kale groupkii Hutugu markay dileen Tutsigii yani waxa weeyaan qof bini aadamunan garanayn uu sababaynayn xataa wuxuu u dilayo oo jaarkiisa ayuu dilayay laana waxa weeyaan wuxuu ku leeyahay groupkii baa qaatay go'aan in dadkan la dilo waa waxaan Soomaalidu yiraahdaan wadar iyo waaxid yaa waalan يعني وحويان جروب كمرنا بمخل دمي كرو مع الجماعة خير مر والبجماعة دي بماركتي أيا صحسن أذوقنا الرأي ملي هدويان أود صدحات مركا وود قيس كويان قيسس كان مركا مالها عن كلمي قيسسكو ما ها قيسس قان كودو لغو قاطو وذكر فاميلي انتو يسكوي مادان maxaan maanta karsanaa iyo maxaan sameeynay halkeen u dhoofnay lacagteena maxaan ku sameeynay maaha waxa jira wax la yiraahdo hierarchy wax la yiraahdo oo ah qof baa meesha ugu sareysa jooga qof baa ku xiga dadna waxay joogan bottomkii bay joogaan meesha ugu hooseysay joogaan مثلا aabihii oo kala kor jooga hooyadii oo kala ku xigta wiilashii waaweynaad baa ku xigta gabdhihii baa ku yani hierarchy baa jira meesha si ay u kala sareeyaan ayaa jira marka taasi waxay keenaysaa in ra'yi hadaad qabtid oo ka duwan ra'yigii dadkan topka jooga meesha sare jooga in ra'yigaaga aan la qaadanayn asbaab kala duwan oo lagu oranayo ixtiraam daraad muujinaysa asbaab keenaysa lagu oranaysa wali adoo dhoocilo iyo adoo yar maaragtay canug yar ama maaragtay ayaad waxa sameynaysa marka waxa weeyaan taas waa awood saddexaad oo marka go'aankaagi ama ra'yigaaga adigu aad qabtay caburinaysa inta badanna waxay ka bilowdaa caburistu waxay ka bilowdaa dhinaca qoyska ka bilowdaa qoyska ka bilowdaa in lagu caburiyo adoo yar
kadib waxay u gudbaysaa dhinacii bulshadii ballaadhnayd oo maaragtay maxaa la yidhahdaa qabiilkii ma garatay in ra'yi aanad muujin karayn maadaama suldaankii iyo sheekhii iyo raggii ay meesha madaxda ahaa ay go-aan leeyihiin adiguna aad gudbin karayn hadhowna waxay noqotaa caburin siyaasadeed oo bulshadii oo dhan oo ballaadhan maaragtay aanad ra'yi ka dhiiban karin maadaama 99% ay ra'yi qaateen tani markaa waxay kasoo horjeedaa markaa mabaadi'dii islaamiga ahayd nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xadiis buu ku leeyahay لا تكون إمعة بولي خنقن داد راعة قفتات كيس كراعة داد كيس كراعة إن أحسن الناس أحسنت هذا دتك وناك سميان وناقات سميسد وإن أساء أسات هذا دتك حمان سميان هذا حمان سمينيسد ومبدأ جاهلي هاويان وحويان أنا ولا الكي أما يسوق ظلم قلي أما هدي ظلم لقى قلبه لبض وان تاجري أنا الله دقال ما يا والله محل هذا مركا وحويان wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam la takun imaa dad raaca han noqonin dadku haday wanaajiyaan wax wanaajiyaan ha wanaajin yani dadku haday wanaajiyaan wanaajisid haday xumaan sameeyaan aad xumaysid laakiin waxa muhiim ah qofku haday wanaag dadku galaan inaad la wanaajisid haday xumaan galaana aad markaa ka leexatid si la taa loo gaaro markaa waxa muhiim ah qofku inuu leeyahay mabaadi akhlaaqi ah qofka bini aadamku inuu isweydiiyo horta anu mabaadideedu waa maxay anu wax maxado anu dadka wax kama sheego anu dadka kuma xad gudbo anu qof ma dilo bini aadama mabaadi inuu leeyahay ko tan labaad inuu ogaado mabaadidaas halkay ka yimaadeen waa maxay salka halkay ku hayaan ma laano ababa ku yiri oo qoyska sameeyay ma suldaanka ku yiri qabiilka sameeyay ma mabaadi siyaasadeed ba mise waa mabaadi diiniya laano islaamka baa sala marka waa inaad ogaato ko waa inaad mabaadi lahaata labo وانا دوغاتا مبادئ سلكي كي يمادين لانه marka lagu yiraahdo niyo waad khaldan tahay waana tolka soo raacda ama waana dadka dhinac ka raac waxaad leedahay ma anu mabaadi baan aaminsanahay marka lagu yiraahdo hay laakiin groupkii baa mabaadi raacay waxaad ku leedahay may aniga mabaadi'deedu waxay ku salaysan yihiin saas waa inaad markaa doodi kartaa oo muujin kartaa ma aha kaliya inaad tiraahdo mabaadi baan anigu leeyahay waa inaad mabaadi'daada difaaci kartaa oo ka doodi kartaa markaa hadday markaa jirto waxaan la yiraahdaa uncertainty waxaan la yiraahdo oo ah inaanad kala garanayn cadaankii iyo madowgii saxdii iyo khaladkii waxaa jira mabda muhiim ah oo nabiga sallallahu alayhi wasallam noo sheegayo ah istafti qalbak uu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam haddii dadku ay ku yimaadaan 10 qof ay kugu leeyihiin warniyow annaga bulshadeena waa ceeb weeyaan qofku inuu xaaskiisa meelahaas la marmaro inuu wax iibsado dukaan uu khudaar ka iibiyo inuu caruurtiisa meelahaas kula ciyaaro inuu saas sameeyo hadday kugu yiraahdaan then waxa weeye marka waanaad qalbigaaga weydiisaa wixii saxda ah iyo wixii khalad mabaadi'da markayna jirin marka oo ayna meel ayna ku salaysanayn ay jirin marka waa inaad qalbigaaga marka weydiisaa istafti qalbak nabiga wuxuu leeyahay marka walaw aftuk haday xataa iyagu ay ku maxaa la yiraahdaa kugu yiraahdaan saas sameeyo oo dhinac culays ku saaraan oo dhinac ka galaan waanaad qalbigaaga weydiisaa marka taas waxay keenaysaa marka inaad habbi ku noqotid go'aanka aad qaadatay inaad ku faraxsanaatid ku qanacsanaatid go'aanka aad qaadatay xataa groupka oo dhan haday ku gooyaan inkastoo aad u adag tahay markay groupka ku gooyaan taasna asbaabaha ay tahay aan u raacno groupka laakiin waxa weeyaan waxaad ku noqonaysaa waad ku farxaysaa go'aanka aad qaadatay maadaama aad fasiri kartid maxaad u qaadatay marka waxaan ka sheekaysanay waxaan la yiraahdo xaaskaygan halkan uga sheekaynaya waxaan ka sheekaysanay waxaan la yiraahdo conformity waxaan la yiraahdo groupku markuu kugu khasbo inaad wax samaysid ama wax qaatid iyo dhinaca diinteena dhinac baan ka aragnay markaan aan sarkeena waa mahadsantahay